maamul goboleedka galmudug oo ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaaciyay taageerada ay u hayaan aqoonsi ay Somaliland ka hesho beesha caalamka. Gudoomiyaha guddida amniga iyo difaaca ee baarlamaanka galmudug xildhibaan Cali Baashi Jimcaale Abdidoon ayaa waxa uu sheegay in Somaliland xilligan mudan tahay in la aqoonsado. Anigu oo ah gudoomiyaha amniga iyo difaaca dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan baarlamaanka xildhibaan Cali Baashi Jimcaale Abdidoon waxaan qabaa inta wax garadka inay waajibtaa maanta inay jamhuuriyadda Somaliland yidhaahdeen hambaliyo gooni istaagoodana waxaan si gaar ugu hambaliyanayaa jamhuuriyadda Somaliland oo gooni istaagoodii maanta u dabaaldegaysa waxaana leeyahay jira oo jooga waxaan ku talin lahaa waan dhihi lahaa hala taageero gooni istaagooda kaasoo aan u arkay inuu dan u yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed iyo islaamka. xildhibaan Cali Baashi waxa uu si adag ugu bogaadiyey Somaliland waxyaabaha ay qabsadeen. Waxaan ku talin lahaa haddii uu dadku fakarayo xaasidnimo ma fiicna Somaliland waxa ay qabatay cid qabatay ma jirto horumar ayay gaartay dalkooda ayay dhisteen waxbarashada ayay guul ka gaareen amniga ayay guul ka gaareen calaaqaadka caalamiga ayay guul ka gaareen ma dhici karto ama ma wanaagsana nin dhowriyaan ah oo luga gacan ka jaban qalbigiisu jabay niyadu ka jaban tahay goor ku xidoonaan loogeyn iyo nin socday oo talaabsaday oo wixii loogu talagala qabsaday in la isku hayo shalay ayagaa noo yimid maantana inay keligood gooni isu taagaan xaq ayay u leeyihiin